Assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan idinla wadaagayaa filim cabsi badan oo horor ah taxadarka ha la badiyo saaxiibayaal ugu horeyn intaanan u galin muuqaalka waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo channelka fiiskiisu aad buu hooseeyaa kor ha loo soo qaado saaxiibayaal ugu horeynba waxaanu arkaynaa in filimka lagu dahfuray nin bukaan ah oo si xun u dhaawacmay waxaana uu isku dayayaa inuu sariirta uu saaran yahay uu ka soo kaco sidoo kale waxa uu isku dayayaa inuu iska furo faashada ku xidhan balse markiiba dhulka ayuu ku dhacay waxaana uu dareemay inuu dagaal soo galay waxaana uu isku dayay in qolka ku xiga uu ku yimaado asagoo beerka ku soconaya balse nasiib daro waxa si kadis ah uga daba yimi kalkaaliyihiisa oo ah cadowgiisa koowaad isla markiiba waxa uu ku celiyay qolka waxaana uu sheegay inuusan isku dayin inuu mar dambe iska furo faashada iyo tuubooyinka lagu xiray bukaanka waana uu miyir daboolmay kalkaaliyuhu waxa uu sheegay inuu mar walba sameeyo taxadar si uu caafimaadkiisu u soo roonaado kalkaaliyuhu sidoo kale waxa uu qolka ka soo saaray bukaan kale waxaana uu sheegay in bukaankani uu yahay bukaan dhadig markii uu soo laabtay bukaanka lab waxa uu ku dhuftay daroogo si uu miyirkiisu mar labaad u daboolmo in yar ka bacdi bukaankii lab ayaa indhaha soo kala qaaday waxaana uu arkay gabadh bukaan ah oo soo eegaysa waxa ku adkaatay inuu la hadlo waxaanay weydiisay maalmahan oo dhan halkee baad ku maqnay sidoo kale wuxuu weydiiyay haddii ay garanayso halka ay joogaan inay u sheegto balse ninkii bukaanka ahaa waxba umuusan sheegin sababtoo ah ma uusan garanayn meesha uu joogo waxaana uu sheegay in bukaanka dumarka ah ay awood u leeyihiin in ay kalkaaliyaha ay weydiiyaan halka ay joogaan si ay ciddooda ugu timaado una fidiso caawimaad maalintii xigtay kalkaaliyaha ayaa soo eegay ninkii bukaanka ahaa waxaana uu ka fiiriyay in caabuq uu kaga dhacay gacanta balse waxa uu ku rakibay oxygen isla markiiba uu soo kacay waxaana uu kalkaaliyuhu u keenay cunto si uu u cuno isaga iyo gabadhii bukaanka ayaa weydiisay waxa ay cuntadani ay ka samaysan tahay kalkaaliyuhuna waxa uu ugu jawaabay waxay ka samaysan tahay dhir iyo cunto dabiici ah sidoo kale waxa uu siiyay bukaanka balse ma uusan cunin waxaana uu dib ugu soo laabtay gabadhii si ay u cunto cuntada intaas kadib kalkaaliyuhu waxa uu cuntada si xoog ah u siiyay bukaanka lab balse waa uu diiday waxaana goobta ka dhacay in kalkaaliyaha uu gacanta u qaado bukaanka lab waxaana isla goobta ka baxay labadii bukaan nasiib xumo waxaa qabtay waardiyaha markan kalkaaliyuhu bukaanka waxa uu ku khasbay inuu sameeyo jimicsi taas oo sabab u noqotay inuu daalo maalinta xiga intaas kadib waxaa labada bukaan loo soo saaray bannaanka si ay hawo u wada qaataan gabadhu waxay u sheegtay kalkaaliyaha inay aadayso gurigeeda maadaama ay xaaladeeda caafimaadkeeda ay soo fiicnaanayso balse waxa uu sheegay inaysan ka baxayn cusbitaalka sidoo kale labada bukaanba waxa ay ku wargeliyeen inaysan haysan wax aqoonsi ah gabadhii dhaawacneed ayaa u sheegtay kalkaaliyaha in dadka dhaawacmay bilaabi doonaan raadinta daryeelkooda balse kalkaaliyuhu intaas ka bacd waxa uu sheegay inaysan heli karin kalkaaliyuhu markan waxa uu kula dhaqmayaa ninka bukaanka ah inuu ka jaro faraha suulka gacantana waxa uu ku wataa maqas balse ninkii bukaanka ahaa ayaa qayliyay asagoo yidhi cusbitaalku waa meel aad u wanaagsan asagoo naftiisa badbaadsanaya intaas kadib kalkaaliyihii ayaa labada bukaan u hooyay gudaha waxaana uu sheegay inay ku nastaan gudaha cusbitaalka intii ay u socotay daawooyinka si ay ugu caafimaadaan gabadhii bukaanka ahayd ayaa ninka bukaanka u sheegtay inay meesha ka wada baxsadaan ayna u baahan yihiin sidii ay kaga bixi lahaayeen ninkii bukaanka ahaa kalkaaliyuhu waxa uu ku xiray xarig maalintii xigtay ninkii bukaanka ah xaaladiisu aad bay uga sii dartay gabadhii bukaanka ahaydna waxay u sheegtay inaysan sii joogi doonin cusbitaalka ayna doonayso inay ka baxsato waxaanay u soo jeedisay haddii ay helaan hal fursad oo ay kaga bixi lahaayeen inay goobta iskaga cararaan maalintii xigtay cusbitaalka waxaa soo galay mas-uulkii ugu weynaa asagoo ka rumeeraya bukaanada oo dhan waxaana uu kalkaaliyuhu u soo qaaday cunto si uu u siiyo ninka bukaanka ah iyo gabadhaba balse ma ahayn mid raba cuntada bukaanka lab in yar ka bacdi kalkaaliyuhu waxa uu soo qaaday inuu siiyo balse waxa uu kula dhaqmay si arxan darra ah oo waxa uu ku muday irbad balse kalkaaliyuhu waxaana markiiba u timi gabadhii bukaanka ahayd habeennimadii labada bukaan waxa ay ku tashteen inay ka wada baxsadaan cusbitaalka balse ilaaliyihii ayaa ku wargeliyay inaysan meelna u bixi karin balse ninkii bukaanka ahaa ayaa ku dhiirigeliyay gabadha kuna yidhi inaan ka baxno weeye meeshu sidoo kale waxaan arkaynaa ninka bukaanka ah inuu gabadha gacanta hayo ayagoo raba inay ka wada baxsadaan goobta cusbitaalka balse markii ay soo wada gaadheen albaabka ay ka bixi lahaayeen waxa ay derbiga ku arkeen sawirro ku dhegan sawiradaas oo ku noqday kuwa argagax leh
waxaanay isku dayeen in ay ka cararaan goobta, balse nasiib darro kumaysan guulaysan inay ka baxaan goobta. Waxaanay arkeen nin bukaan ah oo sariirta jiifa. Goobtana waxaa ku jira kalkaaliyaha asagoo wata qalab. Goobtana waxaa ku jira kalkaaliyaha waxaana uu wataa qalabka wax lagu qalo. Waxaanay gabadhu u sheegtay inaana la qalin oo xaaladiisu soo fiicnaanayso bukaanka lab. balse gabadhii bukaanka ahayd halkan waxa ay kala kulantay hanjabaad, asagoo u sheegtay haddii ay mar dambe isku daydo inay baxsato in la qali doono. Gabadhii bukaanka ahayd waxa ay ka xumaatay sida xun oo ula dhaqmayo ninka bukaanka ah, waxaana ninka bukaanka uu sameeyay qaliin, waxaana uu kalkaaliyuhu sameeyay qaliin. Waxaanay aragtay kalkaaliyaha oo gacanta ku wata maqas, rabana in gabadha bukaanka ah ka jar suulka, balse gabadhani waxay samaysay iska caabin. Gadaal waxay kaga dhufatay dhalo quraarad ah, waxaanay kaga dhacday wejiga. Kalkaaliyuhu intii uu dhulka jiifay waxay caawimaad u fidisay ninkii bukaanka ahaa siday goobta uga wada baxsan lahaayeen, waxaanay raadisay albaabkii ay ka wada bixi lahaayeen. Nasiib xumo, dhammaan albaabada cusbitaalka way wada xirnaayeen, waxaanay galeen qol meydka la dhigo. isla markiiba indhahoodu waxay qabteen meyd suran qolka. waxaanay caawimaad weydiisteen Maleta si ay u baxsadaan. Markii ay ka soo baxeen albaabka, waxay arkeen kalkaaliyaha iyo aygoodii oo jooga iridda cusbitaalka. Markiiba waxa uu ku soo fasaxay aygoodii, waxaanay ku carareen gudaha cusbitaalka, waxaana ka soo dabagalay kalkaaliyaha, balse waxay ugu dhuunteen qolka meydka la dhigo. Qoortana waxa ay kaga dhufteen bir, waxaana la yaab la noqotay ninkii bukaanka ahaa iyo ninkii ka shaqaynayay cusbitaalka oo hal mar wada weeraray. waxaana u suurta gashay inay qolka meydka ku soo xiraan kalkaaliyaha iyo aygiisaba. intaas kadib, labada bukaan waxa u suurta gashay inay ka baxsadaan cusbitaalka. Markii ay marayeen wadada, waxa uu istaagay gaari. Markii ay soo galeen, waxa ay aqoonsadeen in gaariga uu wado kalkaaliyahoodii. isla markiiba waxa ay isku dayeen in ay gaariga ay ka baxsadaan kuna cararaan wadada, waxaanay u wada carareen kaynta si ay uga dhuntaan kalkaaliyahooda. balse kalkaaliyaha isla markiiba waa uu ka soo daba cararay, waxaana uu baaskoolad ku soo taagay bukaanka. gabadhii bukaanka ahaydna waxa uu geliyay laabta, balse ninkii bukaanka ah waxa uu ka dhacay jar, waxaana ka soo daba carartay gabadhii. goortii ay u timi way qaylisay ayadoo leh i caawiya. ninkii bukaanka ahaana miirkiisu waa uu ku soo noqday. goobtana way ka soo baxsadeen ayadoo garab galaysa. waxaanay la kulmeen koox guruub ah, waxaanay weydiisteen inay caawimaad siiyaan. filimkan waxaa la sii daayay 2018 waxaana lagu magacaabaa Alive. waa inoo muuqaalka xiga.